meesha safaaradda Brussels agaasimaha guud ee jinsiyadaha iyo maaragtay socdaalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya mudane Kofi ujeedadu meeshan waxay tahay in maaragtay arko sida baasaboorada ummadda Soomaaliyeed ee ku nool safaaraddan ay process garayso marka arrintaas iyada ay nagu soo booqday haddana waxaan hadalka ku wareejinayaa Sheekh Cusmaan oo u qaabilsan qofka baasaboorada araajida qabto oo process gareeyo inuu bixin horta naga siiyo sida ay meesha ku socoto iyo dhibaatada ay jiraanna uu u sheego agaasimaha guud waxyaabaha jira iyo howsha say u socoto. Sheekh Cusmaan kusoo agaasimaha guud hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, safiirka safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee dalka Belgium iyo European Unionka, aad ayaa umahadsantihiin konsularka Cali Maxamed Buukar, dhammaan martida nagala soo qayb gashay hawshan guud ahaan waa wada mahadsantihiin. Ilaahay mahadiis safaaraddan waxaa la ka bilowday diyaarinta ama bixinta ama process garaynta baasaboorada. hawsha inuu daahay hakad ku jirtay hadda laga soo bilaabo bilowgii bishii Maarch shaqadu waa noo socotay ilaa hadda waxaan process garaynay 92 baasaboor 39 baasaboor waana soo gaareen ayagoo daabacan oo diyaarsan dadkii lahaana oo ay qaateen dhammaantood faylashoodu waa kuwan halkaan ay ku jiraan iyadoo qof walba laga saxiixay oo baasaboorkeedii qaaday 42 baasaboor oo daabacan oo hadda taalla magaalada Nairobi oo maanta ilaa berri la soo saaray dhiid halkan ayaa iyadana faylashan halkan noogu jira. faylkan waxaa noogu jira 10 baasaboor oo aan weli processkooda dhammaystirin oo dadkii markii loo sameeyey maaragta applicationka laga diyaariyey in la jeegareeyo oo la hubiyo kadibna loo diro xarunta dhexe immigrationka si loo daabaco aan weli diyaar ahayn halkan ku jira. guud ahaan tirada aan process garaynay waxaa waaye 92 baasaboor. marka hawsha baasaboorka hadda si wanaagsan ay ku socotaa. dadka baasaboorada qaata waxay ka yimaadeen dhammaan wadamada Yurubta dhexe, Ingiriiska, UK, Scandinavianka ama waana loo kaga yimaadaa. maxaa yeelay meel kale oo baasaboor laga bixiyo wadamada ku taalla hadda ma jirto, halkaan baa laga bixiyaa. si wanaagsan ayaan ugu dhamaynaa. dadka degan dalka Belgium waxay noo yimaadaan ballan la'aan si toos ah markayna soo waxaan noo imaada maalmaha aan shaqeyno aan processka samayno way noo yimaadaan waan u samaynaa. dadka degan wadamada kale waxaan u samaynaa appointment si aysan ugu soo lugoyn maalin oo ama ciladi jirto ama si uu wuxuu xayiran yihiin appointment-gooday ku yimaadaan. hal saac oo badnaan ayaan haysanaa processkaan u samaynaa way iska laabtaan hadhowna baasaboorada markay yimaadaan waa waxnaa telefoon iyo address iyo website iyo waxay email ka reebnaa. haddii ay rabaanna way soo doontaan, haddii ay rabaanna codsi ay emailka kusoo diraan codsigoo soo la daabacaa waxaa lagu dhejiyaa faylashaan faylkooda lagu dhejiyaa kadibna waxaa loogu diraa DHL-ka. guud ahaan marka hawsha baasaboorada hadda si fiican ay u socotaa wax dhibaataa hadda ka taagan oo maaragta aan sheegaynana ma jiraan. shaqaduna aad ay u socotaa. dadka baasaboorada qaata oo Soomaalida ah waa dad qaxooti ah
oo waddamadan Scandinavian-ka iyo Yurubta u jooga qaxooti ahaan xoogaa culeysyada ugu badan oo kala kulanna waxay tahay magacyadooda sababtoo ah qof waliba markuu soo galay qaxootiga magaca u bartay waxaa laga yaabaa kuwa waxay u qoran magacyo aan shaqo laba lahayn oo maaragtay dhowr xaraf oo isku dhega ka kooban haddii